Salaamu calaykum. Saaxiibada aad leedahay saddex nooc ayay u kala baxaan. Kuwo ku caawiyey waqtigii aad dhibta ku jirtay, kuwo kaa tagay xilligii dhibaatadu ku haysatay, iyo kuwo iyagu dhibta kuu geystay. Qaybta ugu wanaagsan ee noloshu waa markii qoyskaagu kuu fahmaan sidii saaxiib oo kale, saaxiibadana kuu taageeraan sidii qoyskaaga oo kale. Saaxiibada beenta ah waa sida harka ama hooska oo kale. Had iyo jeer waa kula socdaan xilliga aad iftiinka ku jirto, balse ma arkaysid saacadaha aad mugdiga ku jirto ama dhibta ku jirto. Inaad daacad ahaato kuma heli kartid saaxiibo badan, balse waxaad ku helaysaa saaxiibo run ah. Marnaba ha ku xulan saaxiib adigoo si dhammaystiran u fahmin. Sidoo kale marnaba ha ku waayin saaxiib isfahan darro ama muran yar. Saaxiib waxa ugu wanaagsan qofka Alle ku xasuusiya, khayr kula jeclaada, marnaba aan dambi kuu horseedin ama kuugu yeedhin. Iska ilaali saaxiibada xun ama nolosha ka dhacay. Inaad wax badan ag joogto ama raacdo. Ogow saaxiibada noocaas ah inay keligood dhintaan ma rabaan. Waxay rabaan inaad isla dhimataan. Markaad aragto kuwa ka carar. Haddii aad ka cabsan jirto kelinimada ama cidlada, hadda ka cabso inay saaxiib kuu noqdaan dad xun. Qof kasta wuu kuu iman karaa goortii aad faraxsan tahay ama guulaysatay, laakiin kuwa dhinacaaga jooga goortii aad niyad jabsan tahay ama fashilku soo gaadho, kuwaas ayaa ah saaxiibada runta ah. Saaxiibka dhabtii wuxuu xaqiiqdii kuu yahay hantidaada nolosha. Si daacadnimo ah ayay kuu saxaan, kuu hagaan, kuna taageeraan. Wehelkoodu wuxuu ku xasuusiyaa inaadan dunida marnaba kali ku ahayn.